waxaa heshiis la dhex dhigay laba urur kuwaas oo muddo hal sano isku khilaafsanaa hanaanka loo maareynayo ciyaaraha kubadda cagta ee ismaamulka Mandera. Labada urur ayaa kulan dheer la tashiyo badan kadib waxaa la isku raacay in hal mid la noqdo taasi beddelkeena laga wada shaqeeyo danaha dhalinyarada ismaamulka Mandera. Ururka FKF iyo ururka kubadda cagta ismaamulka Mandera ayaa horan si weyn khilaaf ugu dhaxeeyay, balse hadda kulan ay maanta yeesheen waxaa guud ahaan laga heshiiyay khilaafkii jiray muddo badan. ciyaaraha ismaamulka Mandera waxaa rigaadiyay khilaaf ismaandhaaf u dhaxeeya labada gudi ee ciyaaraha Mandera, taasoo saameyn ku reebtay. Axmed Xasan Amiin oo loo yaqaano Macalin Boqa ayaa dadaal geliyay sidii loo heshiisiin lahaa ururada kubadda cagta ismaamulka Mandera, taasoo shaqo iyo juhdi geliyay Macalin Boqa sida ay noo sheegeen xubnaha gudiyada. Hadda waxaa la soo dhisayaa xubno ka kooban 12 kuwaas oo muddo 6 bilood si ku meel gaar ah u qabanaya howlaha kubadda cagta Mandera, waxaana si guud la isku raacay in laga midoobo dalada ururka caalamiga ee dalka FKF muddada 6 bilood kadib. Dhammaan ergada kooxaha kubadda cagta Mandera ayaa dooranaya shakhsiga hogaamin lahaa ciyaaraha kubadda cagta ismaamulka Mandera. sida halkaan aad ugu jeedaan waxaa iskugu imaaday hal doorka magaalada Mandera dhalinyarta hogaaminayay kubadda cagta khaasatan Mandera East. waayadan dambe xogaa in badan khilaafaad baa soo jiray u dhaxeeyo labada gudi oo ka kala tirsan FKF iyo MCFA. wax badan oo horumar oo la gaari lahaa ama tallaabo hore loo qaadi lahaa oo la qaadina waxaa sabab ay u ahayd khilaafka ka dhex taagan labada gudi. rag mas'uuliyiin ah oo waqti badan geliyay baa waxay ka shaqeeyeen inay isu imaadaan oo labadan gudi inay mideeyaan. ilaahay ma haddii waqti badan ha qaadato, laakiin ugu dambeyn waa lagu guuleystay. waxaana suurta gashay in labada gudi ay midoowaan, gacmaha is wada qabsadaan. markii la ogaaday ama markii qof walba maskaxda uu ka shaqaysiiyay waxa loo socdo ama waxa loo ordayaba inay tahay in dhalinyarta magaalada Mandera loo adeego. sidaa darteed waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta ka soo shaqaysay kaalin ka geysatay in labada gudi ay isu imaadaan. waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahad celiyo walaalkay Maxamed Xasan oo asagana shaqo badan geliyay sidoo isku keeni lahaa dhalinyarada labada dhinac. waxaa kaloo u mahad celinayaa Kamaal, asagana waqti badan nala soo qaatay sidoo uga shaqeyn lahaa. dhammaan inta kalena waan u mahad celinayaa. waxaan rabaa marka maadaama waqtigu uu nahayo ujeedada ugu weyn waxay tahay labada gudi oo ka dhisnaa magaaladan si hal gudi u noqon lahayn dhalinyartana ay ugu shaqeyn lahaayeen. muhiimadda ugu weyn waa intaa. waxaan rabaa wixii intaa ka dambeeyo inaan ku soo dhaweeyo FKF branch gudigii labada dhinac MCFA ahaa iyo FKF. waxaan ku midownay inaan dhisano boodiga FKF ayaan ku midownay. alxamdulillah magacaygu waa Liibaan Yaxya, vice chairman Mandera East Sub Branch. anigoo ku hadlayo magaca Mandera East Sub Branch chairmanka Abadagan iyo teamkeygii. waxaan iskugu imaanay anagoo kala ahaa laba association oo Mandera County iyo FKF San Mandera maaragtay caqabadooyin waxaan jira aan u xalino oo hal iskugu noqono. marka gudi u horeeyo walaalkay Macalin Boqo iyo walaalkay Maam Xasan iyo Kamaal iyo Keenan ayaan waxaan sameynay si horaan loo sheegay inaan isku imaano oo hal gudi aan noqono. marka taasna insha Allah waa tan aan ballan qaadnay. aniga iyo gudigay waxaan aday aan ka wada hadalnay maadaama warqadaha maanta aqoonsigiina la siiyay in caqabadaha Mandera yaalo garoomada xiran san ku furi lahayn team kan badan oo ilaa 62 teams ay hadda noo registeraysan si lagu kala saari lahaa. hadduu ilaahay ku idmaayo caqabadaha badan Mandera yaalo sidii lagu kala kaxayn lahaa. waxaa kale aan ka wada hadalnay Mandera County Head Coach Kamal iyo isagana inuu maaragtay soo dhisto Mandera East team oo xilsaaran ay matali doonaan Mandera guud ahaan. waxaa kale aan maaragtay aan ku tashanay inaan soo sameyn doono referees oo Mandera ay leedahay. referees Mandera leedahay markuu league bilowdo sidii referees loo raadinin. waxaa kale aan ku sii heshiinay in isku keenno dadka maaragtay kooxaha oo wili training sidii maaragtay trainings wax loo qaban lahaa. waxyaabo badan ayaan ka wada hadalnay. marka hadduu ilaahay waxaana ballan qaadnay in maaragtay gudigan gudi adag noqon doono Mandera u shaqeyn doonto
ونشقين دونه وحي دب يو تفرارق يالنا اسكو كين دون هدو إلى إدمو anigoo magacayga ku hadlaya maxamed xasan cilmi gaar ahaan ummadda inta isku imaaday ayagoo laba fikir kala duwanaa oo hadda maanta hal fikir iyo hal mowqif ku wada jooga waa arrin aad iyo aad u fiican oo lagu farxo waxyaalaha ugu badan oon ka soo shaqeynay waxay ahayd inay reer Mandera mugdi zaid ay ku jireen laba xisbi magaaladan uu kala maamulay dhalinyartii meesha ku baabaaday tii hadda waa ka soo gudubnay in aan anagoo midaysan reer Mandera inaan wax u qaban karna aan la fiirinin iyo awood aan lahayn tii waxay sababtay in hal guddi magaaladan laga soo saara sub branch dadkan loo magacaabo oo hadda anaga ka mid ahay arrintaasna aad iyo aad maartii u soo dhaweynaynaa waxaan kaloon hadda rabaa inaan arrinkan aan ku cadeeyo annaga haddii aanayna reer Mandera dadka maanta la soo xulay branch iyo sub branch ayagoo dhan intay wada joogaan annaga shaqadanada waxaa waaye sub branch haddii aanayna in aan Mandera East gacan aan ku qabanna dardaaran kalan hadda raba inaan meesha ka sheega nimankan kale oo FKF oo branchga raggan walaaladee oo sub branch waxay diyaar u yihiin in ay shaqadan ay si oo maartii hufnaan oo daacade inay u shaqeeyaan ay diyaar u yihiin idinkana waxaan karnaa sidaas camal inaad diyaar u noqotiin inay Mandera wax ay iska bedeli karto hay noqonin dad isu imaaday oo kala xanaaqay oo kala tagay ayna noqonin dardaarankaasna waxaan siinayaa branch oo naga weyn oo maartii experience waqti badan soo shaqeeyay nimankan kale sub branch aan aniga aan kamid ahay inaan isku xirnaana magaaladana wax aan ka bedeli karnaa election oo xaq iyo xalaal oo qof walba qayb gali karnaa waxaan karnaa branch ayagoo daacadii anagoo daacad inaan reer Mandera aan gaarsiin karnaa magacaygu waxaa waye Ahmed Maat FKF Mandera County Secretary marka maanta ilaahay maad iskale horta meeshaan aan joogno midda kale waxaan intu joognaa waxaa shalay la soo dhisay Mandera East sub branch ayaa la soo xulay dadkan meeshan taagan kulli ma aragtay waxay matali doonaan football Mandera East ayay matali doonaan insha Allah waa muddo 6 bilood 6 bilood kadibna waxaa la rabaa in la qabta electionka FKF hadduu ilaahay idma bad ka hor waxaan rabnaa raggan inay isla wada shaqeeyaan kulli football Mandera ay kor u soo qaadaan taas ayaa muhiimad ah marka maanta waxaan intu joognaa inaan dadweynaha iyo shacabka kulli aan u sheegno inay boodi cusub oo Mandera East football u xilsaaran in la soo dhisay boodigaasna ay gudigali doonaan wixii maanta ka bilowda taariikh 1 January 2023 ilaa muddo 6 bilood kadibna electionkii la soo diyaariyay insha Allah oo Mandera East sub branch marka waxaan dhilaayay mahadsanid soo dhawaada kulligiin in ka badan 60 kooxood ayaa ku ciyaara guud ahaan garoomada ismaamulka Mandera kuwaas oo hadda yeelanaya mustaqbal hogaamineed oo muddo badan jahwareer ka jiray Saakubule Dawa FM Mandera.